istiraatiijiyadda amni oo laga leeyahay furitaankiisa maanta saldhigga aan dhagax dhigayno iyo baahida loo qabay iyo meesha uu maanta dhacay runtii waa meel muhiim ah horumarkii gobolka ka socday iyo amnigii ka socday buuna qayb ka yahay oo waliba qayb lixaad la ka buuxinaya sida uu xusay taliyaha qaybtu halkan nin oday ah oo ganacsada ah oo dhulal badan ku leh oo degan ayaanu ku heshiina saldhiggan inuu noo dhiso dhulka qayb ka midana oo yarna uu isagu dhul ahaan u qaato inta kalena uu saldhigga noogu maalgeliyo laga maarmaan bay noo noqotay saldhiggan inaanu halkan ka samayno halkan dad badan baa dhiigiisu ku baxay oo saraakiil ah oo askar ah oo qiimo badan baa nooga dhintay xeradan waxay ahaan jirtay xarunta fawdada magaalada meeshii amnigeedu ka digay bay ahaan jirtay waana meel qurux badan oo intaas soo guri laga dhiso hadda magaalada bilicdeeda meesha u soo socota in saldhig laga sameeyo way u baahatay baahi weyn bay u qabtay meeshii saldhig laga sameeyana waxaa ku yaraanaya dunuubta laana waxaa jooga dharin ninka u dhowbaa lafta kala baxaa la yiriyo booliiskii baa taagan magaalada booliis iyo saldhig baa amnigeeda suga booliiskuna waa inuu agabkiisii iyo saldhigiisii iyo gaarigiisii iyo meesha haystaa booliiska saldhigga bartamaha jooga halkan waxay ka soo gaaraan baaba iska yar markii halkan degaan xaafadda horumar bay u tahay maanta dhulku xataa waa ka qiimo badnaanaya sidii hore dhulkaani meeshiisii joogi mayo mar haddii saldhig laga dhisay amni baa u soo dhawaaday nin waliba carruurtiisa naftiisa ku aaminaya waxaana la rabaa haddee waxaan u rajaynaa saldhiggan inuu noqdo mid tuug iyo argagixisay iyo abtoyba lagu xiro saldhig kastoo aan dhisno waxaanu ka rajaynaynaa in qof shabaaba iyo qof abtoy la isugu geeyo dalka abtoy iyo argagixiso un baa haysata labadaas un baa mushkilad ku ah annaguna waxaan u soo taaganahay waa labadabana shabaab baa isla leh saldhiggan waxaan garanay inaan u bixinno Cornel Cismaan waa taliyihii ciidanka madaxtooyada oo halkan ku dhintay hawlgalkii July 2020 laga fuliyay oo nimankii cabtooyda inkaarta qaba haysan jiray dadka xoolihiisa ku dhaganaa looga qabtay Cornelku lagu dhex dilay weeye waxaan u garanay Cornelku halkan uu ku shahiiday inaanu ku maamusno inaanu saldhiggan magaciisa u bixinno marka qofka dalka u shaqeeya oo ku dhinto dalka shaqadiisa ku dhinto haddii dadkii ka dambeeyay ay tashriifaan dadkiisu waana ka samraan waana ku dhiiradaan wixii aabahood ka shaqeyn jiray inay ka shaqeeyaan ilmaha Cismaan waxay ku dhiiranayaan inuu amniga Cismaan ka shaqeyn jiray ka shaqeeyaan inuu sidoo bulshada uga adeegaan waana ka samrayaan waxay garanayaan dadkooda dad sharaf leh oo loo shaqeyn kara inay yihiin marka waxaan ku magacawnay Cornel Cismaan police station ayaa leedahay saldhiggan waana saldhig wuxuu ku yaallaa xero kabka xeradii warshada kabka oo ku dhex dhintay buu ku yaallaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin shirkadda waxaan ka rajaynaynaa ilaahay u fududeeyo inay 3 bilood ay noo qabatay ay ku soo dhamayso ganacsade huruusa shoobane waxaan ka rajaynaynaa isaguna waa u ducaynaynaa ilaahay wuxuu haystaa u barakeeyo waxaan rabnaa inuu sida uu noola fahmay nin fahmad fiican oo akhyaar ah oo wadani u ahaa inuu ballantu qaaday halkan dhismaheeda iyo isaga iyo waxa ka wada shaqeyn doona shirkadda iyo maayarka anaga wakiil noo ah injineerna ah oo dhismaha iyo waxaas noo yaqaana maayarka iyo shirkadda dhisaysa iyo lacag bixiyuhu inay waxa rabnaa isla socdaan oo maayarkuna kor joogto nooga ahaado saasaanu ka rabnaa haddii wax nagu soo noqdaan oo waxaanu ku heshinay wax nagu soo noqdaanna waxaan ballan qaadaynaa waa bixinaynaa wixii aan ku talagalay wax ka badan haday galaan diyaar baanu nahay anaa la igu leeyahay bixinaya